waa hawl noo bilaabatay waana idinku ammaanayaa shaqadii aad qabateen sidaa u qaban qaabiseen xafladihii quruxda badnaa ee 59 guuradii ee ka soo wareegtay maalintii gobolada waqooyi ee Soomaaliyeed xorriyadda qaateen 26 Juun iyo 1 Julaayo oo maalintii koonfurta ay qaatay xorriyadda iyo israaci iyo midnimadii ummadda Soomaaliyeed aan u weynaynay quruxdeedii iyo qiiradii shacabka iyo guud ahaan farxaddii ummadda Soomaaliyeed kulli meel walba ay runtaan ka arkaynay ee muuqatay hadday tahay gudaha dalka iyo hadday tahay dibaddiisaba waxay la tahay waxa weeye waa dhaqan cusub waxaan aaminsanahay muddooyinkii burburka ahaa la soo maray haddii dadku dhibaatooyin kale iska haysay waxyaabo kale lagu mashquulsanaa waxyaabaha aan isaga mid ka nahay lama qiimeynin waxyaabaha naga halaabana waxa weeye waxyaabaha aan ku kala duwannahay yaan xoojinaynay oo aan jirinba laakiin waxyaabaha aan isaga mid ka nahay oo aan ka midaysannahay waa la iloobi marka runtii 1 Luulyo iyo 26 Juun waa astaan qaran oo ummadda Soomaaliyeed oo dhan ay ka dhaxayso oo ay tahay inaan weyneyno inaan qurxinno in meel walba oo Soomaaliya ay joogto ay ka dhigto wiigaas xorriyadda aan ugu magac darnay waa ogtihiin sanadka soo socda waxaan gelaynaa 60 guuradii waa 60 jirsanay macnaheedu waxay tahay inay tahay inaan weyneyno oo maanta tii aan sameynay aan 3 jibaar iyo 4 jibaar aan ka sii weyneyno si taas loo sameeyana hawsheeda iyo qabanqaabadeedu waa inay hadda bilaabato oo idinkuna aad tihiin guddigii ka shaqeynayay inaan isu diyaarinno 60 guuradaas Soomaaliya oo dhanna meel kastana aan ka dhigno hadduu Ilaahay yiraahdo dadka dibadaha jooga ay ugu horeeyaan safaaradaha noo joogana ay qabanqaabiyaan oo iyagu hormood ka noqdaan oo qof walba oo Soomaali ah hadduu yahay caruur iyo hadduu yahay ciroole isku si loogu dabaaldego macnaha markii aan hadda qabanqaabadeeda bilaabaynana de waxaan ka shaqeynaynaa مثلا magaalada xamar bilicdeeda quruxdeeda magaalooyinka kale ee gobolada quruxdooda iyo bilicdooda yaan ka shaqeynaynaa insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdo waxaan rajeynayaa tii aan sameynay iyo dareenkii shacabka aan aragnay iyo farxaddii ay muujiyeen mid laba jibaaran inay muuqato sanadka bacdi hadduu eebba yiraahdo waa mudantihiin sharafka maanta aad runtii hesheen ummadda Soomaaliyeed hortooda aan idinku siinay aniguna aan idinku aqoonsaday inaad tihiin dad halyeeya ah oo runtii wadaniyiin ah mar labaad waa idin mahad celinayaa shaqada wanaagsan aad qabateen xaqiiqatan waxaad abuurteen wadaniyad cusub yaad abuurteen oo guri walba oo Soomaaliyeed laga dareemayay oo guri walba oo Soomaaliyeed calanka buluuga ah oo xidigta 5 geesood leh guri walba oo Soomaaliyeed lagu hayay macnaha waxaan ka leenahay waxay tahay ilmaha yar ku koraaya maxaa moodaan marka wadaniyadu waa intaas qofka markuu yar yahay ama environmentiga bee'adu ku nool yahay u arko wax aad u sareeya oo qaran iyo wadaniyad ah khasbiyan ilmahaasi markay koraan waa garanaynaa meeshii aadayaan hadduu gurigaas guri ku koro uu yahay guri calanka lagu jeexjeexayo dhibaato iyo qabyaalad iyo balaayo iyo looga shaqeynayana dee khasbiyan ilmahaasi ma wanaagsanaanay marka waxaan u nahay aasaas inaan dib u soo nooleenno qiimihii iyo wanaaggii ummadda Soomaaliyeed u dhaxeeyey oo astaanta qaranka ahayd inaan soo celinno runtii wixii aad samayseen wax aad u wanaagsan ayay ahayd 7 beri oo aan u dabaaldegaynay hadday noqoto taalooyinkii fankii lagu soo bandhigayay oo heesaha wadaniyadda lagu qaadayay dadkii shacabka ahaa oo la soo saaray labada xafladoodba runtii waxay kicisay shucuurta dadkeena iyo kor u qaaday macnaheedu waa isku soo dhawaanaynaa macnaheedu waxa weeye midnimadii yaa xoogsanaysa